السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal. Sanad walba bilowgiisa hadafyo ayaa la dejiyaa, go'aamo adag ayaana la gaaraa. Sidoo kale xamaasad cusub ayaa dhasha. Laakiin bisha labaad ee sanadka marka la gaaro, wixii oo dhan waxba kama jiraan. Sidoo kale sanad walba marka uu cusub yahay, goobaha lagu iibiyo buugaagta iyo warqadaha sida maktabadaha ama stationeryada waxaa caadi ah inaad ku aragto dad badan oo iibsanaya buugaagta iyo warqadaha lagu dejiyo qorshayaasha. waxaana dhasho xamaasad ah dejinta qorshe aan dhaafsiisnayn maalmaha ugu horeeya ee sanadka. way sahlan tahay inuu qofku yiraahdo waxaas ayaan rabaa inaan xaqiijiyo, meeshaas iyo meeshaas ayaan rabaa inaan gaaro, waxaas ayaan rabaa inaan barto. laakiin waxa adag laguna kala tagay ayaa ah in hadalladaasi ficil loo bedelo. mowduucan waxaan maanta kaga hadli doonaa sida aad qorshe ugu dejisan lahayd una xaqiijin lahayd qorshayaashaada sanadkan cusub ee ku soo dhawaada mowduuceena maanta. dejinta iyo qorsheynta yoolka waxay noo fududeynaysaa inaan ogaano meesha aan joogno, waxa aan rabno iyo sida aan ku gaari karno. baaritaan la sameeyay ayaa sheegaya in 80% dadka qorsheysta ahdaaftooda sanadka bilowgiisa ay la kulmaan guuldarrada qorshahooda labada bil ee ugu horeysa sanadka. laakiin ha welwelin, waxaan kuu hayaa isla markaana kula wadaagi doonaa dhowr qodob oo haddii aad si sax ah u dhaqan geliso kuu horseedi doono in ahdaaftaada aad si fudud u xaqiijiso, sanadkan kaaga dhigi doono sanadkaaga insha Allah. qodobka koowaad, dib u eeg sanadkii hore. qaabka ugu fiican ee aad u dejin karto yoolkaaga ayaa ah inaad dib u milicsato sanadihii tagay, gaar ahaan sanadkii dhammaaday. waxaad isweydiisaa sanadkan dhammaaday qorshooyinkii aan dejiyey maxaan ka xaqiijiyey, kadibna isweydii sidoo kale waxyaabaha aadan xaqiijin iyo sababaha aad isleedahay way keeneen inaadan xaqiijin. inaad ku fashilinto xaqiijinta ahdaaf aad degsatay waxaa keeni kara waxyaabahan soo socda: in uu hadafka yahay mid ballaaran, in aadan dejin qorshihii aad ku gaari lahayd yoolkaaga, in yoolka uu yahay mid aan la gaari karin, in aadan haysan agabkii saxda ahaa ee aad yoolkaaga ku gaari lahayd, iyo inuu yaraado rabitaankaaga ku aadan gaarista hadafkii aad degsatay. dhammaan caqabadaha aan soo sheegnay waa qayb ka mid ah waxyaabaha keeni kara inaadan gaarin hadafyada aad qorshaysatay. laakiin ha welwelin, waxaan kuu hayaa xalka iyo dariiqada aad kaga gudbi lahayd dhammaan caqabadahan. qodobka labaad, dejinta qorshe fiican, smart goals. dhammaanteen waxaan leenahay riyooyin aan mar un rajeynayno inaan ku guulaysano. laakiin si aad ugu guulaysato riyadaas waxaad u baahan tahay qorshe. qorshaha laftiisa ayaa u baahan inaad u marto dariiqooyin ama qaabab kala duwan. dariiqada aan rabno inaan maanta muuqaalkeena idinkugu sharxo waxaa lagu magacaabaa smart goals. ereyga smart 5 xaraf ayuu ka kooban yahay, waana 5 dariiqo oo ay xambaarsan tahay qorshe dejinta noocan ah. xaraf walbana micno ayuu u taagan yahay. mid ayaan u sharxi doonaa insha Allah. S waxay u taagan tahay specific oo ay micnaheedu tahay xadid. M waxay u taagan tahay measurable oo ay micnaheedu tahay wax la qiyaasi karo. A waxay u taagan tahay attainable oo ah wax la gaari karo. R waxay u taagan tahay relevant oo ah wax quseeya hadafkaaga. T waxay u taagan tahay time bound oo ah waqti xadidan ama go'an. haddii aan mid u dul istaagno micnaha 5tan erey, aan ka bilowno ereyga ugu horeeya. specific waxaan kala jeednaa xadid oo cadday ujeedada aad leedahay. way adag tahay inaad gaarto yoolkaaga haddii aadan si sax ah u cadaynin una koobin hadafka aad rabto inaad gaarto. waxaan soo qaadanaynaa 2 tusaale, mid ku saabsan buug qoris iyo mid ku saabsan waxbarasho. waxaan ku hormarinaynaa kan koowaad. ka waran haddii aad dhahdo waxaan rabaa inaan buug qoro, ujeedadaada ma xadidna, wayna adag tahay inaad xaqiijiso hadafka noocaasa. taa beddelkeeda waxaad hadafkaada ku cadayn kartaa adiga oo sheegaya mowduuca buugga aad rabto inaad ka qorto iyo xitaa pageska uu ka koobnaan karo buuggaas. tusaalaha labaad, ka waran adiga oo raba inaad barato shay cusub. haddii aad dhahdo waxaan rabaa inaan wax barto, ujeedadaada ma xadidan yahay? maya, sababtoo ah waxa aad rabto inaad barato ma cadda. haddaba sideed u xadidi kartaa marka? waxaad dhihi kartaa waxaan rabaa inaan barto luqadda Ingiriiska. ma aragtaa farqiga u dhexeeya? wax walba oo aad rabto inaad ka guul gaarto waxaa qasaba inaad xadido isla markaana aad caddayso. measurable waxaan ka wadnaa yoolkaaga waa inuu yahay mid la qiyaasi karo lana cabiri karo. haddii aan ku laabano tusaalooyinkeeni, in aad dhahdo waxaan rabaa inaan qoro 5 page maalintii, taas oo ka dhigan 150 page bishii, markaasi hadafkaaga waa mid la qiyaasi karo lana cabiri karo. tusaalihii waxbarashada markaan soo qaadan, waa inaad dhahdaa si aan u barto luqadda Ingiriiska waa in aan maalintii 2 saacadood siiyo barashada luqadda. marka uu yahay hadafkaaga mid la cabiri karo waxaa sahlan inaad gaarto hadafkaaga.
qodobka xiga ee xeeladeena smart waa in yoolkaagu uu yahay mid la gaari karo. Tani waxay ka dhigan tahay in hadafkaagu uu noqdo mid waaqici ah, lana jaan qaadi karo xaaladda aad ku sugan tahay. Haddii aan tusaalooyinkeennii ku noqono, ka waran haddii aad dhahdo waxaan rabaa inaan maanta bilaabo isla maantana dhammeeyo buugga aan rabo inaan qoro. Macquul ma tahay arrintaas? Dabcan maya. Sidoo kale ka waran haddii aad dhahdo waxaan rabaa inaan maanta ku barto luqadda Ingiriiska. Sidoo kale hadafkaas ma ahan attainable. Ma xuma, wayna fiican tahay inuu hamigaaga sarreeyo, laakiin sax ma aha inaad ka dhigto yoolkaaga mid ay adag tahay in la gaaro. In aad dejiso yool la gaari karo waxay kaa caawinaysaa inaad ku sii dhiirato sidii aad u xaqiijin lahayd yoolkaaga. Laakiin haddii yoolka aad degsatay uu u muuqdo mid aan la gaari karin, waxay u badan tahay inaad ka niyad jabto kuguna adkaado gaarista hadafkaaga. Relevant waxaan ula jeednaa yoolkaaga inuu waafaqsan yahay kuna habboon yahay jihada aad u socoto. Aad uga fikir arrintan oo deji yool la xiriira hiigsigaaga mustaqbalka si aad u ogaato inaad hayso waddadii aad ku gaari lahayd ujeedooyinkaaga fog iyo yoolkaaga. qodobkeena ugu dambeeya ee farsamadan smart goals waa inaad yoolkaaga waqtiyeysaa. waxaa caadi ah dabeecadda aadanahana ka mid ah inaan wax walba u rabno si degdeg ah inay inoogu qabsoomaan, laakiin rabitaankaasi sax maahan. marka aad dejinayso yool ama hadaf, waxaa qasaba in hadafkaaga uusan noqon mid furan oo uu ahaado mid xadidan waqtina leh. hadafka haddii uusan lahayn waqti xadidan, inta badan way adkaataa in la gaaro. aan ku dabaqno qodobkan tusaalooyinkeennii aan soo qaadanay. waxaad dhihi kartaa waa inaan ku qoraa buuggan muddo 2 bilood ah. arrintaani waxay kaa caawinaysaa inaad og tahay waqtiga ay tahay inaad ku dhammayso mashruucaaga, waxaana ku dadaalaysaa inaad dhammayso buugga ka hor deadline-ka ama waqtiga aad u qabsatay. sidoo kale tusaalihii labaad, waxaad dhihi kartaa waa inaan ku bartaa luqadda Ingiriiska muddo sanad ah. haddii aad ku salayso yool dejintaada farsamadan, waxaa hubaala inaad si fudud ku gaari doonto hadafkaaga insha Allah. qofku waxa uu wax ku yahay waxna ku xaqiijiyaa ma ahan hadal ee waa wax qabad. sanadkan cusub ee hadda bilowga ah, inaad hadashid ama aad wax qortid oo keliya kuguma filna. 2023 ha noqdo sanad ka duwan sanadihii hore, oo waxa aad tiigsanaysid ha noqdaan wax kugu qoran, weliba leh waqti ay ku eg yihiin oo uu hadafkaasi expire noqonayo. in ahdaafta aad tiigsanayso aysan qornayn oo aadan u raacaynin sida aad u qoratay ama aad u qorshaysatay, waa waxa keena sanad walba bilowgiisa inaad go'aano qaadatid, isla markaana sanadka uu ku dhamaado adiga oo ku fashilmay dhammaan go'aamadii aad qaadatay. waxay noo balanaa sanadkan wax qabad dhab ah insha Allah. موضوعنا maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayna haddii aad leedmo. haddii aad ka hesho muuqaalka, fadlan like saar, lana wadaag qof walba oo aad isleedahay wax uu ka faa'iidi karaa. mahadsanid. inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.